taariikhdu waa 1994 waa bishii labaad goobtuna waa Hargeysa Stadium khalqigii ku noolaa magaalada Hargeysa u heelanaa dawladnimada u heelanaa nabadgelyada waxay iska soo xaadiriyeen madasha weyn ee kubadda lagu ciyaariyay Hargeysa Stadium madaxweynihii qaranka ee waqtigaasi Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ayaa goobta ku sugan hub kala duwan iyo ciidamo kala duwan oo markaasi beeleysna ayaa ka soo galay iridda hore ee garoonka weyn ee Hargeysa Stadium Suldaan Maxamed Suldaan Faarax ayaa hogaaminaya waa Sancaani waa guutadii ugu horeysay ee hubka dhiibta kuna wareejisa dawladnimadii waqtigaasi ee Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal shacbiga waxgaradka hurmuudka waxay ku soo dhaweeyeen sacab mashxarad damaashaad iyo galbin qiimo badan ciidankii warkaas sidii xukuumaddu soo heshiisay kacodsanayaashan waxa sheegata haweyey waxa leeya dhaqaalina haysta waa run faraxa ka qaada xukuumadda ku wareeja dhaqaalada ku wareejiya xukuumadda madaxweynaha iyo xukuumaddiisa ku wareejiya ay noogu shaqeeyeen Sancaani guusada Sancaani ayaa iyadoo ku laba noqotay ciidanay maanta u yidhahdo dalkii aynu xoreeyey ugu horreynta waxaynu u dabaaldegaynaa waxa ugu horreeyey markaasi arrintaasi u horgasho Suldaan Maxamed Suldaan Faarax oo ciidamadii uu markaa isagu beelahaan amba halku ka soo jeeday ayuu tusaale ka dhigtay ugu hor xareeyay beelii hubaystay markaa SNM ka koobnaa ee filqsanaa ee beel wali hub gacanta ku haysay waxa ugu horeeyay Allah u naxariistay Suldaan Maxamed Suldaan Faarax oo ku taageeray madaxweynihii Allah u naxariistay labadu way dhinteen Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal Suldaan Maxamed Suldaan Faarax waxa uu ku dhiiraday xilligaasi in uu dawladii gacanta ka saaro dhammaanba hubkii iyo ciidankii Sancaani oo ahaa ciidankii ugu horeeyay ee iska xaadiriyay taliska guud ee ciidanka qaranka ee maanta loogu dabaaldegayo sanad guurada 12 ee ka soo wareegtay 1994 tani waxay noqotay taariikh si rasmi ah isu qortay waxaana tusbax furtay noqday dhammaanba ciidamadii kala duwanaa ee beelaha Soomaaliland oo si maalinle ah isaga soo xaadiriyay garoonka Hargeysa Stadium waxay si rasmi ah u wareejiyeen dhammaanba hubkii iyo ciidamadii ay gacanta ku hayeen afraad ayaa iyaduna waxay halkaasi iska xaadirisay iyadoo oo wada dhammaanba hubkii iyo sanadii kala duwanaa ee gacanta ay ku hayeen kuwii maqaayadda inanta iyo kuwa badan oo lamida haddii ay xay kaa tahay waxay leeyihiin diikada afraad hubkii ay adgaranaysaan ku xoraysa dalka ayay wareejinaysaa ee dawladda ku wareejinaysaa asagoo ka kooban 4 madfac shiilke 1 madfac keegaahe 6 madfac biitan 2 madfac جيب 4 مدفع قانون كليك الطيارة 8 قنطار ايش كا ولا يوم كل يوم وطن المدفع يوم مغير تجرى 4 مدفع أنت بقول ما تري ولا مدفع أنت بقول يشم المدفع وأنت بقول يا وطن 6 مدفع ولي الله 6 مليمتر 3 مدفع كويتايا سيديتريا سيديات مجاهدين waxay wareejinayaan oo halkan keeneen 3 tiknika oo ay saaran yihiin 9 madfac oo kala ah سوسة تحيا لواتن المدفع تيجا أوها
المدفع قرار المدفع بيتن لما مدفع ميران لما مدفع قدار تقاصرية سيارات وحاكم كنشوكا هنجي وساري على الطريق الرئيلة بقرية يحمل المتر ماذا حريني وحاكمون الجنين قولنا بالكلية وطنك أي واجب قوة هاي قلتي أفرادي ستي إيوه إنما مضيبة وريجين معها والدولتين قال قرية يا إلهي وضلك معك قرية اللهم ألف بين قلوبهم كما ألفت بين أصحاب اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم وأيدهم بروح وأيدهم بروح ويرزقهم من لدنك رحمة ورضوانا رحمة ورضوانا رحمة ورضوانا tani waa taariikh reer somalilan ay dhabaha ugu jeexeen dowladnimada iyo nidaamka dhabta ah ee maanta dalkan ka hana qaaday ducada allabariga iyo qiirada shacbiga ka sokow madaxweynihii wakhtigaasi ee maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa uu shacbigii haldoorkii salaadiintii iyo waxgaradkii dhammaanba beelaha somalilan uu ku booriyey in dhismaha iyo tiirka adag ee ciidanka qaranka ay rukun adag u yihiin waa maalintii jamhuuriyadda somalilan ay si rasmiya u qaadatay nidaamka nabadgelyo ee dhabta hanaanka dowladnimo waxaana si iistaba jooga somalilan looga xusaa sanadba sanadka ku xiga sanad guurada aasaaska ciidamada qaranka